halkan waa isgoyska degmada Howlwadaag gaadiidka raaxada hadda ma soo gudbayaan oo askar goobta taagan ayaa diidan inay soo gudbaan sidan ayay caasimada ku jirtay tan iyo markii duqa Muqdisho uu soo saaray amar uu ku sheegay in gawaarida raaxada aysan wadooyinka qaar soo gudbi doonin qaraxa oo laga hortagayo awgii tani waxaa dheer darawalada gawaarida raaxada marka goobaha baarista ee wadada wadnaha iyo wadooyinka kale ay yimaadaan waxaa loo dirayaa inay wacdaan taliye waxaana iyagu shacabka ay ku cabanayaan inaysan garanayn taliyaasha dhibaatooyinka annaga aan dareemin oo kuwa ugu yar dadka kale tabarta daran ee hawlo badan ka fakanayeen oo meel badan iska gudbi karin oo aan isticmaali karin ma ka sii badan shacabka ayaa arintani dib weyn ku abuurtay taasoo sabab u noqotay in kuwa badan gawaaridii ay wateen ay iibiyaan amaba guriga iska dhigaan Dr. Cabdulqaadir Maxamed Sheelila waxa uu ii sheegay in gaarigiisa uusan meelna u kaxeen sabab la xiriirta in hadhow uu soo xareyn kari waayo awgeed dhibaatada jidadka way soo jirtay waqti dheer bay soo socotay hadda se way sii adkaanaysaa dulqaadku iska siiraanaya dhibaato aad baa ka jirta waxa kamid ahay dadka baabuurta ku dhax wata xamar waxaan ugu talagalnay magaaladu nolosha inay fududaatay asalka ahayd baabuurtu macallimiintu way u sahashaa wadooyinka inay maraan dhowr meel oo kala aadaysid inaad u kala fududaysatid nolosha caadiga ahayd baa ku xiran magaalada marka la kala xiray marka waxay noqotay baabuur macna uu beelay in baabuurta la iska dhigay noqotay in marka qaarkood bajaaj aad isticmaashid marka qaarkood biilkii xataa waa la kala gooyay wax kale ee la isticmaali kara hadda bajaajtuna waa qiimaha uu sareeyaa waa culays badan baa meesha ka jira dhibaatooyinkaasi waxay kalifayaan qofku inuusan hawlo badan qabsanin haddaad banaanka u baxday waxaad ogtahay in hadhow soo gelista aad ka fikiraysid من دحاس أنا وعيدي وبحني وقراب سلام يبنانك وأدني أيا وحنا قبصتي مدة كل دواد لبعض ساعة 3 ساعة ينتهي لا أفر ساعة بيني مو سو لا يابلو ولا يسبقون سجلني دتكم ما وذكرنا عند ولد ما لو عنكروا تلفون لو عنكروا لما يقانو نحصل لها الكاس دباتوين بدن دباتها أنا دريمين وكو أوير ودكتور دريميان darawalada oo dhan waa ay ka siman yihiin arintan maadaama ay Kenya jabeen inay ka xeystaan gawaaridooda ka ganacsiga gawaarida raaxada iyo arintani saameyn weyn ku yeelatay taasoo sabab u noqotay in gawaarida raaxada aan aad loogu isticmaalin caasimada aadan oo gawaarida iibiya ayaa sidan dareenkiisa igu cabiray gawaaridii raaxadan keena anaga beeciisa ayaantan waxa waaye sidii hore iyo hadda maaragtay farqi weyn u dhaxeeyo muddo 3 bilood baabuurtii geerishku waa dareemi kartiin ilaa banaanka baabuurtu waa safayihiin labada geesood darbi oo geerish ka soo galay ilaa baajooyinkii businesski baabuurtii xoogaa waxa waa ayaantan culays ka yimid oo xagga maaragtay jidadkii la xiray awgeed ganacsatada gaadiidka waxay bishii iibin jireen inta u dhaxaysa 20 ilaa 30 gaari mararka qaarna waa ay ka badnaan jireen kuwaas oo isugu jira yar iyo waaweyn balse bilihii u dambeeyay hoos u dhac weyn ayaa ku timid halkan waxay ka mid tahay goobaha lagu iibiyo gawaarida gawaari ayaana buux dhaafiyay banaanka ayaa loo soo saaray oo xitaa la waayay goobo la dhigo dadkii iibiyo gawaaridan waxay ku sheegayaan inay sababta arintan ay tahay wadooyinka oo xiran iyo dadkii oo ka biyadiidan inay gawaarida gataan u badan waxa way qof walba oo aad tirada aad rabto inaad gaari kula macaamisho wuxuu marka koobaad kugu xirayaa uu leeyahay meel aan marsiina baabuurti ma lahan magaalada waxay noqotay dhowr xuduudood qofkii inta dan kale waa soo gudbi la yahay marka qof walba baahida wax baabuurta waxa loo gataa oo maaragtay dadka badan u gataan dana joogta ama baahiyadii ay dadka u gadanayeen baabuurtii waxay ku lug xiran tahay wadooyinkii ay la mari la yihiin marka qof walba maadaama wadooyinka ay xiran yihiin oo baabuurtii meel maran u la yahay oo qofkii inta u tilaab inta u soo gudbi karin kii xagga jiran inta uu saxariir ku noqotay sidaas awgeed waxay dadkii ay u cabanayaan ee wax laga gadi jiray ay ku leeyihiin baabuur meel aan marsiina anaga male gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso ayaa 31 bishii Maars ee sanadkan xilli habeena waxa uu sheegay in sababaha gawaarida raaxada loogu diidayo wadooyinka qaar ay tahay in caasimada howlgallada ay ka bilaabanayaan qaraxu uu noqday mid loo isticmaalo aalad gaadiid iyo qalabba in meelaha dhici karto in gaadiidkaas lagu soo buuxiyo ama gaadiidka naftirkoodii sidii xal loogu heli lahaa oo dhici karto wadamo qaarkood wadooyin qaarkood
in si kumeel gaarana loo xiro islamarkaana baaris dhab ah la sameeyo waayo haddii aanan taas la samayn waxay noqonay badbaado shacabka inay dadka muqdisho ku nool markaad la sheekaysanayso waxay kuu sheegayaan in xalka dowladda ay qaadatay uusan ahayn mid qarax looga hortegi karo balse ay u muuqato mid shacabka lagu dhibaateynayo dr cabdulqaadir maxamed sheelilah xalka dowladda laga rabo waxa uu ku tilmaamay inaysan noqon mid shacabka lagu dhibaateynayo balse ay noqoto mid ay ku soo dhawaysanayso maadaama shacabka ay bixiyaan canshuuraadkii sidoo kalena aysan macquulayn in dhammaan shacabka muqdisho ay wada wacdaan taliyaal dadku aad bay ugu dhib qabaan tacaamulka wicitaanka waa wax adag weeyaan bulshada Soomaaliyeed xamar ku nool dhan maxmuud aan karaan marka badiil waxa laga rabaa dawladdu inay la imaato wax arintaas ka duwan xal waxa la rabaa inay fiican xulato dawladdu wadooyin badan baa amniga lagu sugaa waxa islaadahay wadadii oo wax tarka yareed inay xulatay dhibka ugu weyn shacabka uga imaanaya waxa la rabaa wadada ugu fudud oo shacabka dhibka ugu yar ka imaan kara xalka ugu weyn dhalin karta hadda laakiin jeedka la xiraayo xal daa'im ama sameynayaan waa xal ku meel gaar ah marka wadada la furo dhibku iska jiraya waxa la rabaa marka in dadkiina loo fududeeyo xalkiina xal daa'im oo joogto ah laga dhigo oo midkan ku meel gaar ahayn way farabadan yihiin xulal badan la sameyn kara marka dawladdu ma aha kan ugu fudud ayada inay raadsatay waxa weeyaan midka ugu waxtarka badan ugu amni sugista badan shacabkana dhibka ugu yar ay kala kulmayaan dowladda Soomaaliya xirnaanshiyaha wadooyinkan Muqdisho ay ku sameynayso waxay u aragtay xal ay kaga hortagi karaan qaraxyada caasimadda ka dhacaya haddana wali caasimadda qaraxyo ayaa ka dhacaya Yaxye Maxamuud Maxamed warbaahinta Mustaqbal Muqdisho